qof kasta oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay in la xishmeeyo, la qadariyo. Xishmadaasi aan dadka ka sugayno waxay ka bilaamataa nafteena, waxayna u gudubtaa dadka. Dadku waxay nagu xishmeyn doonaan waxay naga arkaan oo kow ka yahay dhaqanka nafteena kula dhaqanno. Halkani waxaan kula wadaagayaa 5 xeer oo kordhinaya in dadku ku xishmeeyaan. intaan u gudagelin tirinta xeerarkani waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka la garayso. La garayntaada waxay naga caawinaysaa in muuqaalka uu dad badan gaaro. Xeerka koowaad waxa uu yahay hadalladaada ka run sheeg. inaad ka soo baxid waxaad dhahdo waxay dhistaa aaminaada lagu qabi karo hadalkaaga, dadkuna ku aamini karaan. haddaad dhahdo shaqadani waxaan ku dhammaynayaa 2 saacadood kadib, waa in 2 saacadood aad ku dhammaysaa adoo marmarsiyo aadan keenaynin. haddii aad qof kula ballanto inaad kulmaysaan weekendiga, waa inaad ka dhabaysaa la kulanka qofkaasi. marka aad ku run sheegayso waxaad ku hadlayso, waxaad dhisaysaa aaminaada dadka ay ku qabi karaan hadalkaaga. xeerka labaad waxa uu yahay si daacadnimo leh u dhaqan marka aysan cidna ku arkaynin. qofka labawajiilnimada ku dhaqma mar ayuu soo baxaa wejigiisa dhabta ah. dadka hortooda intaad daacadnimo ka muujisid ha qiyaamin. marka ay hol kugu aaminaan, hawshaasi uga soo bax si daacadnimo leh, marna ha ula dhaqmin si wajiilannimo leh. xeerka saddexaad waxa uu yahay dadka ula dhaqan si sharaf iyo xushmad ay ku jirto. waxaad rabtaa in wanaag lagula dhaqmo, dadka ula dhaqan si wanaagsan. haddii aad rabto in lagu xishmeeyo, adiga marka hore xishmeey dadka. waxaadan bixin heli maysid, hana sugin. dadka haddaad si xushmad darri leh ula dhaqanto, cid ku xishmaynaysa ma jirto. weliba sida aad ula dhaqantay si ka qallafsan bal ula dhaqmi doonaa. xeerka afraad waxa uu yahay ahaw qof ku kalsoon awooddiisa. waxaad isu muujisaa inaad ka soo bixi kartid shaqada weliba si kalsooni leh. marna waxa aad taqaano 50-50 ha u aqbal inaad u qabanayso. haddii aad taqaano waa taqaanaa, waxaadna ballan qaadaa inaad ka soo bixi kartid shaqadan weliba si awood leh oo kalsooni ay ku dheehan tahay. kadibna awooddaada cilmigaaga isugu gey si aad uga dhabaysid hadalkaaga. qof kasta oo ku kalsoon awoodda xirfaddiisa ama awoodda waxa uu yaqaano waxay ka dhigtaa in kambaniyadu ay u riyaaqaan. mana jirtaa shaka diidaysaa qof ku kalsoon awoodda xirfaddiisa ama cilmiga uu yaqaano. xeerka shanaad ee ugu dambeeya aan rabo inaan kula wadaago waxa ay tahay jidhkaaga dhis, caafimaadkaaga ilaali. buugga Atomic of Attraction ee uu qoray Charles Cowlin waxa uu ku sharaxayaa sida attitude-ka iyo behavior dadku ay isu beddelaan markay arkaan qof fit ah oo darees fiican xiran. waxay ula dhaqmaan si xushmad leh xitaa haddii aysan aqoonin. jidhkaaga sidaad uga shaqayso waxay kor u qaadaysaa kalsoonidaada, dadkuna waxay ku khasbaysaa inay ku ixtiraamaan. laakiin haddii qof isku dhex daadsan aad tahay oo buuran, neefta ka soo horayso, socon karayla, qofkaas waxa uu kuu malaynayaa bukaan inaad tahay. cidhiiri nololeed aad ku jirto, xishmadna inay kuu muujiyaan iska daaye, bukaan bay kuu arkaan.